kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal wararkeena maanta qodobada idinku haynana waxaa ka mid ah qorqor oo amray in hub aan lagu dhex wadan karin dhuusamareeb iyo gaalkacyo. madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni oo maanta shaaciyay liiska musharaxiinta aqalka sare Israa'iil oo sii xoojinaysa weerarada ay ku qaaday Lubnaan iyo wararkii ugu dambeeyay. daawadayaal kuwaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon wararkeena maanta ee ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Galmudug gaashaanle dhexe Cabdullaahi Abuukar Xasan ayaa shaaciyay in tilaabo adag laga qaadi doono askarigii bulshada dhexdeeda ku furay rasaas. gudoomiyaha oo khudbad u jeedinayay saraakiisha iyo askarta ciidamada xoogga dalka ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa sidoo kale sheegay in loo ogolaan doonin askarigii xoogga dalka ka tirsan oo fasax la'aan iska aada gudaha magaalooyinka. waxaa kaloo uu sheegay inay dambi tahay in ciidamada militariga soo galaan shacabka dhexdooda iyadoo uu sidoo kale faray hay'adaha amniga sida booliiska iyo nabad sugidda. gudoomiye Cabdullaahi Abuukar ayaa waxa uu ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ku amaanay guulihii ay ka soo hodiyeen howlgallada ka socday gobolka Mudug ee xoreynta magaalooyinka cusub sida Camara ee maamulka Galmudug. waxa uu ku tilmaamay howlgallada ay ciidamada deegaanadaasi kaga sifeynayaan argixisada mid tusaale u ah soo afjaridda Al-Shabaab iyo inaysan haynin awood ay ku sii joogi karaan deegaanada maamulkaasi. go'aanka uu shaaciyay gudoomiyaha ayaa waxaa ku soo aadaya xilli ay shacabka cabasho badani ka gudbinayaan rasaasta ay ciidamada ku dhex ridaan xaafadaha iyo gudaha magaalooyinka isla markaana ay ku dhib qabaan iska hor imaatanka. Israa'iil ayaa maanta sii xoojisay duqeymo cirka ah oo ay ku qaadeen dalka Lubnaan iyadoo sheegtay inay ka jawaabayso gantaalaha halkaasi looga soo tuuray toddobaadkan. war-saxaafadeed ka soo baxay ciidamada Israa'iil ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka ay weerareen goobo gantaalada lagu soo tuuray dhowrkii maalmood ee tegay iyo goobo cusub oo horay Israa'iil looga soo weeraray. ciidamada ayaa ku eedeeyay dowladda Lubnaan weerarka waxayna ka digeen isku dayo kale oo lagu waxyeelanayo shacabka iyo madax bannaanida Israa'iil. weerarada cusub oo xaaladda ka sii daraya ayaa imaanaya xilli ay jirto xiisad siyaasadeed oo kacsan. dowladda isbahaysiga ah ee Israa'iil oo ka kooban 8 xisbi ayaa isku dayaysa inay ilaaliso xabad joojin aan caga adag ku taagnayn oo lala galay kooxda Xamaas ee maamusha Gaza, taasi oo soo gabagabeynayso dagaal socday 11 maalmood bishii May. dhowr dhacdo oo ka horeeyay gantaalada toddobaadka lagu soo tuuray Lubnaan ayaa diiradda lagu saaraya xuduudda waqooyiga Israa'iil isla markaana Mareykanka ayaa si degdeg ah u cambaariyay weerarada lagu soo qaaday Israa'iil. telefishinka Al-Manar oo la hadlayay kooxda Xisbullah ayaa wariyay duqeymaha Israa'iil qiyaastii 2 subaxnimo wuxuuna intaasi ku daray inay ku dhaceen goobo bannaan oo ku taala xaafadda Muhaydiya ee degmada Marjiano. Ajivia Andera oo ah afhayeenka luqadda Carabiga ku hadla ee ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in dowladda Lubnaan ay mas'uul ka tahay waxa ka dhacaya duleedka wuxuuna ka digay weerar kale oo Israa'iil looga soo qaado koonfurta Lubnaan. wararka aynu ka helay Garowe ayaa sheegay in saacadaha soo socda la filayo in madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni uu ku dhawaaqi doono liiska xubnaha musharaxiinta ee aqalka sare ku matalaya maamulkaasi. Deni ayaa haatan wada tashiyadii ugu dambeeyay ee la xiriira shaacinta xubnaha u sharaxan Puntland sanatarada ay ku leeyihiin aqalka sare ee 4 sano ee soo socoto. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in Siciid Cabdullaahi Deni uu xalay kulan gaar ah la qaatay gudoonka iyo xildhibaanada golaha wakiilada Puntland isagoo kala hadlayay sidii loo bilaabi lahaa doorashada aqalka sare ee Puntland si loo dhaqangeliyo jadwalkii hore. wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in ay suuragal tahay in liiska ay iska waayaan qaar ka mid ah sanatarada haatan Puntland ku matala aqalka sare ee Soomaaliya. Garowe ayaa waxay sidoo kale muddooyinkii dambe ka socday kulamo xasaasi ah oo laga hadlayo arrimaha doorashooyinka gaar ahaan tan xildhibaanada labada aqal. Puntland ayaa ka mid ah maamulada ka daahay qabashada doorashooyinka aqalka sare waxaana isu soo tarayay baaqada loo diray ee ku aadan bilaabista doorashooyinka. si kastaba Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ayaa noqday maamuladii ugu horeeyay ee ku guuleystay bilaabista soo xulista sanatarada cusub kuwaasi oo qaarkood lagu doortay magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo oo xurumaha ku meel gaarka ah labadaasi maamul goboleed ah. daawadayaal wararkeena maanta waxaa idin akhrinaya oo idin soo saaray anigoo Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Khair. intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaa idin kaga tagay sidaas iyo fi amaanillah.